dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Xamaas ayaa maanta sii daayay 6 ka mid ah maxaabiista Israa'iiliyiinta ah oo ay gacanta ku hayeen meelo kala duwan oo magaalada Gaza ah ayay ku sii daayeen qaarkood waxay wateen dhalashooyin kale laakiin waxay ka soo wada jeedaan Israa'iil mid ka mid ah askartii la sii daayay Israa'iiliyiinta ahayd ayaa sameeyay ficil la yaab leh kadib markii wajiga hore uu ka dhunkaday askartii Xamaas taasi oo noqotay fariin wajigabax iyo dhabanaha isku noqotay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu warbixin ayaan idinkaga hayaa fariimaha abni ee maanta ku dhex jiray dadkii la sii daayay iyo sida ay Xamaas arrintan u qaadeen warbixin barroosho aan ku dabinayo ayaad arrintaasi ku ogaanaysaan warbaahinta Israa'iil ayaa soo bandhigaya in Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha talada haya ee nidaamka Israa'iil aanay suuragal ka ahayn in shacabka magaalada Gaza la raro hadda ayaa la ogaanayaa runta tanina waxay tahay wax aan la aqbali karin oo ah dhaanteed ay leeyihiin qaar ka mid ah warbaahinta maxay tahay haddaba arrintan saameynta ay ku yeelan karto Israa'iil maxay soo dadajiyay in Falastiiniyiinta go'aanadeeda hadda loo dambeyn doono dadaaladii wada hadalka nabadda xaggee buu marayaa ilaa iyo 600 oo Falastiiniyiin ah ayaa maanta laga sii daynayaa xabsiyada Israa'iil taas oo la filayo in guryahooda ay dib ugu laabtaan qaarkood ayaa la sii daayay waxana hadda muuqanaya dadaal xooggan oo bariga dhexe ka soconaya madaxweynaha dalka Lebanon waxa uu dhaleecayn baan u jeediyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo nidaamkiisa waxana uu ku eedeeyay in wali ay rabaan inay sii gumaystaan qaybo kamid ah dhulka Lebanon waa fariintii ugu adkeyd ee madaxweynaha dhawaan talada uu la wareegay uu soo jeediyay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku dul istaagi doonaa muuqaalkan saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada maanta dunida waxa ay marqaati ka noqotay taariikh kale oo dhacaysa magaalada Gaza waxay ahayd barta hadal haynta wararka adduunka kooxda Xamaas ayaa soo bandhigtay in ay sii dayso 6 ka mid ah lahaystayaasha Israa'iiliyiinta ah oo ay muddada ku haysay magaalada Gaza waxana ka dhex muuqanaya gudbinta sideyntaasi gudbin fariimo kale oo amni oo la yaab lahaa taasi oo qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil ay bilaabeen badurbaba inay si weyn u taxliiliyaan arrinta la yaab kale waxay tahay in 6 maxaabiista ah midba meel gooni ah lagu sii daayay waxa loo soo labisay ciidamadii Xamaas waxa sidoo kale qayb ka ahaa dhinacyada kale ee hubaysan ee Falastiiniyiinta kuwaasi oo lagu macsuumay meelaha fagaarayaasha ah ee lagu sii daynayo ama lagu wareejinayo maxaabiista Israa'iiliyiinta tani waxa ay Xamaas leedahay waa fariin amni oo ku socota Israa'iil waxaynu leenahay Falastiiniyiintu waa midaysan yihiin ujeedadooduna waxay tahay in ay gobonnimo ku naaloodaan isla markaana dalkeena uu noqdo mid aan inaga maamulno ay leeyihiin fariimaha amni ee laga dhex arkayo sida qubarada taxliilka amnigu ay ku tilmaamayaan fagaarayaashii maanta sii deynta waxyaabaha laga akhrisan karay arrintani waxay daba socotaa iyadoo Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu wajahayo khilaaf daaqili ah isla markaana Israa'iiliyiintu mashaakil siyaasadeed oo amni iyo mid siyaasadeed ay dhaxda uga jiraan siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda Netanyahu ayaa ku dhaliilaya in siyaasadda gudaha ee Israa'iil uu kala diray isla markaana uu ku guuleysan waayay maxaabiista inuu ka soo daayo gacanta Xamaas hase yeeshee hadda ay xorriyadooda ku helayaan wada hadal lala galay Xamaas tani oo ay Israa'iil u aragto mid si weyn ugu noqonaysa wajigabax iyo foolxumo weyn arrinta kale oo amni oo lagu dhex arkay fariimihii maanta ay Xamaas dirayeen markii maxaabiistan ay sii daynayeen ayaa waxay tahay mid kale oo la yaab dhalisay markii la arkay askari Israa'iili ah oo dadka la haystay kamid ahaa oo 2 kamid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Xamaas isagoo wajiga ka dhunkanaya waxa uu muujinayay naxariis badan waxana tan leeyahay waa hanaan ku aadan hab dhaqankii kooxda Xamaas ay kula dhaqmayeen maxaabiista ay gacanta ku hayeen taasi oo dhalisay in dadka la haystayaasha kii la sii daayaba uu gudbinayo fariin si gaar ah ugu socotay shacabka Israa'iiliyiinta ah wadna qabadna ku noqonaysa madaxda nidaamkaasi uu Netanyahu ugu horeeyo qaar ka mid ah wasiirada Israa'iil oo hadla waxa ay tilmaamayaan in Xamaas fagaarayaasha ay uga adkaanayso marka la eego sida ay hadda wax u socdaan laakiin askariga la sii daayay ayaa waxa ay muujinaysaa
dhunkashada uu sameeyay sida dhaqanka loogu sameeyo oo ahaa mid wanaagsan sida qubarada taxliilku ay tilmaamayaan xaaladda dhabta ah ayaa qofka adag soo saara qofka adagna waxa uu ka soo dhaxbaxaa meel adag isagoo si dhaba uga marqaatin noqda nolosha uu markaasi ku jiray sidaas waxa yiri mid kamid ah dadka wax taxliiliya oo tilmaamaya in Qassam si kasta oo ay xaalad adag ugu jirtay haddana hanaan wanaagsan maxaabiistu ay kula dhaqmeen taasi oo sababtay in kamid ah maxaabiista Israa'iiliyiinta in fagaaro ay ka mahad celiyaan iyagoo fariimo diraya oo aan waliba hadlin sida ay leeyihiin qodobkaasi halkaasi ayaan ku dhaafayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in go'aanka raridda shacabka Gaza aanu isaga si dhaba u qaadan karin wargeyska lagu magacaabo Macaarif ee Israa'iil ka soo baxaya tilmaamaya in Benjamin Netanyahu fikradaha ka baxaya warbaahinta uusan isaga lahayn marka la eego shacabka magaalada Gaza ee Falastiiniyiinta in halka laga saarana oo isaga xaqiiqada u muuqanaysa ay tahay in aysan suuragal ahayn oo xal kale la wajaho hase yeeshee uu ka dhowraya afkiisa inuu banaanka ku keeno xaqiiqada uu og yahay haddii uu shaaciyo waxa ay sababi karaysaa inqilaafka siyaasiga ah iyo waliba mashaakilka siyaasadeed oo hadda wajahayo ay ku sii laba laxaadsadaan haddii aan isla wararka bariga dhexe ku sii socdana madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa maanta dhaleecayntii ugu baaneyd u jeediyay nidaamka Israa'iil ee Benjamin Netanyahu uu hogaamiyo waxana uu ku tilmaamay in ay doonayaan in ay carqaladeeyaan xabad joojintii gudaha Lubnaan laga dhaqangeliyay oo ay la galeen kooxda Hezbollah ee sida weyn gacan saarka u leh dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran madaxweyne Coon ayaa waxa uu yiri marka la eego sida koonfurta Lubnaan Israa'iil ay dhaqdhaqaaqyada uga sameynayso markii ay doonto waa tallaabo muujinaysa buu yiri astaan u eeg gumaysi oo dalkeena uu ku jiro waxaana loo baahan yahay Israa'iil inay tixgeliso qawaaniinta caalamiga ah haddii kale ciidamadeenu waxay noqon doonaan kuwa safka hore soo istaaga hadalkan waa waxaa mar kale lagu tilmaamayaa inuu yahay goodin ka dhana Israa'iil oo ka imaanaysa Beirut madaxweynaha cusub ee dalka Lubnaan maalmihii ugu dambeysay waxa uu ku dhawaaqay go'aano adag oo saameyn ku yeelanaya qaar ka mid ah wadamada gobolka ee ugu horeysa Iran iyo sidoo kale nidaamka Israa'iil ee Benjamin Netanyahu uu hogaamiyo waana sargaal dhinaca militariga ka yimid oo muddo dheer ciidamada ku jiray go'aanadiisa waxay u muuqdaan in ahdaaf siyaasadeed leh hase yeeshee durbaba waxa uu hantinayaa taageerada iyo waliba shacabka dalka Lubnaan oo markan dhinaca dawladda u soo janjarsanaya akhyaarta nala socota dhacdooyinka wararkii ugu waaweyn caalamka xilligan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa si aad dhacdooyin iyo kuwa kale oo dheeraad u heshaan ku soo biira YouTube-keena oo subscribe dhaha dhinaca kalena Facebook-keena ku soo biira oo follow dhaha aad baad u mahadsantiin